degmada madkada firi madaxweynaha dowladda way ka amaanay koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigare in weejidiyada degmo nabdoon degmo ma aragtay oo olaad iyo waxyaabahaas weli aan ku dhin waana kii tilmaamay gudoomiyaha muddada dheeray oo roogay degmadu oo wiilashan olaadlaan ku tabiin bulshada maamul iskiin taas ka dirteen oo degmadu waxyaabaha ka maamulay oo ada bulshadu iyo hay'ado ammaanka iyo maamul intaas ka diiri la arkor niyo ida waxaan su'aal faylow taasi way balka diiri horta dowladnimada oo madaxweynaha sida habsamida leh hogaamiyahay yalla ka diiri تيتيا كلام يعني أنا شخصيا أنا شخصيا ملين شخص ولا أمانته ولا معمول كله أقول هتيجانك أمانته ولا أضياش الله أمانته ولا بالشوين تأكل كنت تجمد ويجد أو سي وناكسن إلى شقية ويبقى فرصة هنا إنه ورسل كوبان لو أنا قدومي هاي دقمة ويجد قبل كباكل مدن محمد معالي يوسف وإسلام مرهان تاسي دقمة ويجد أنا سفر جامعة كدني قدومي شرفني أتمر كورن ماي تي في أكيد أوينا ويبقى وربينه أساسي حارد دقمة ويجد قبل كباكل يهور مرض يسوب بدي مدوني كده أدو مركورة كرواس ماي تي في ما شاء الله إذا ما سنتها دواو أكيد دواء نهرتيني هذا بوقته هذه تي في iyo wafdigiisa hogaamiyaysan iidan ka faraxsana intaas ku dib weejid hadii horumarada iyo soo bidii kulleeto oo caalamka dhan ku argahayo to bulshooyinka reer koonfur galbeedna argahayo markii intaas la hawo gudub oo aan gudaha nagada weejid sanadeedii hadan ka dambeeyay oo dawladda koonfur galbeed oo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigaran hogaamiyo intiiba dawladdan jarti horumarada oo dawladaha hoose iyo soo bidii ama xanaqaadka dawladeed iyo soo bidii run ahaantii way baar kornay wallahi koobo kormee way baa horumarka soo biday dhiniga waxbarashada way horumarka soo biday dhiniga caafimaadka way horumarka soo biday dhiniga oo inshaqada dawladaha hoose way baa horumarka soo biday dhiniga oo maamul wanaag ama xanaqaadka oo inshaqada maamulka iyo dawladaha hoose sidii oo landaada jiifadi iyo horumarka soo biday run ahaantii taasiyada oo hadii ku dhaahdo koro wal itusi taabsi yalla qowday run ahaantii oo waxbarashadii oo dib u habeyn laga soo biin waxbarashadii dawladii Soomaaliya markii la hubtaba ay lan dugsi sare ma ku jarjarn oo xitaa galaas 8 may la raayisini oo inshaqada may la raayis oo ardayga markaasay dugsi dhexe iyo sare iyo hoose iyo isu weydiyo way yaasay in soo baydho seeda ama seeda Kenya ba ama Muqdisho ba walaa dhow ma jaran hata ardayda inta ku bati oo ato dugsi sare ku bati iyaga ku weejid ka shaqeeyahay oo mishaarka qaadahay marka heer jaamacadeedna waa meel faylaning marahay dhiniga waxbarashada heerkaas la ku deeri oo dawladda koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis hogaamiyo hata oo wasaaradda waxbarashada uu ka amaanay yeel ku deeri dhiniga caafimaadkana geekadiiba argaasi isbitaalka talasaadi oo agabkii inka macquulsanay ama agabyadii oo geeka casriga ah yaalan dhiniga isbitaalka caafimaadka jeena heerkaas la ku deeri dhiniga kala dawladaha hoose oo maamul wanaagana teerimkii lamaad oo li doordo waan oo si oo doorasho golo deegaanka kooyo dabcan markan maamulkan kiyada aragday la kulantay magaaladana tiyada aragday bulshooyintii aad aragdiyo macni jidada labi shalay isbarteemada aragaasi oo mashruuc ilaa iyo 100,000 iyo wala jar deero yamay la raayso oo way bargaasay in oo inshaqada si salqaan la ka dhisay salqaanka suuga markan yani bulshada hadii ka talatay مشروع دولة كلا كوكوي نمهين مشروع كوكوي ميل لهرو هيئة شانتنا مهين مشروع أنت أصديره إني إسبرتي ملك لسه بالشدة كويت أرجوين كذا أرجدي أو بالعذا ميل الرئيس أستان مقالة أستان إسلقان على كدس حفيسة هذا أرجدي إسلقان كتوب سني برشة هنونست حالي بالشدة بالشوين تنس كويت إسلقان يا كهجاك سنة يعني marka jidad oo way balbiyay ilaa iyo 5 jid olmastaada tumil jid oo isgoysi leh yalbiyo waasac la kaweel oo kaliya inay oo nayla rasbal kala soo bi ilaa iyo 700 geed ya tilaalni oo hata baahayo magaalada markada dhaxmarta aad ku fiirsadaas intaasi in badan oo lahan koobo koran oo dhiniga
ciidamada iyo dib u habeynta laga soo biyey daraawiishta booliiska xarumaha dowladda dhan oo aan intaan ka koobo korno gudoomiye degmada madkana feri madaxweynaha dowladda way ka ammaanay koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigare in weejidiyata degmo nabdoon degmo ma aragtay oo olaad iyo waxyaabahaas weli aan ku dhin waana kii tilmaamay gudoomiyaha muddada dheeray oo roogay degmadu oo wiilashana olalaan ku tabiin bulshada maamul iskiin taas ka dirteen oo degmadu waxyaabaha ka maamulay oo ada bulshadu iyo hay'ado ammaanka iyo maamul intaas la ka deeri la kor niyow idaa waxsanta su'aal faylow taasi way bal ka deeri horta dowladnimada oo madaxweynaha sida habsamada leh ka hogaamiyahay yalla ka deeri تيتيا كلام يعني أنا شخصيا أنا شخصيا ملي شخص ولا أمانته ولا معمول كله أقول هتيجان كه أمانته ولا أضياش الله أمانته ولا بالشوين تو أكره كنت جمد ويجد أو سي وناكسن إلى شقية يلا طبعا هدي ويبوا مركي مسؤول أمانه بعد أرد بالشدة إيو مركزي اسكو حرناشة سيدي لنا شقية وكهرنت markan hoob iyo hadii in la shaqeeyo fanayo idugu dufadeen aan yaani shakhsiyan malin amaano fan weejid mal amaano fan marka taasiyada way beer kore bulshooyinta iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka hareerahan degan oo iska duuban yalla ka deeri taasi iyo dowladnimada oo wanaagsan la ka deeri waajid markaana feeri wayba ku dhiman laami iyo wadooyin ma aragtay cobblestone oo horumarada koonfur galbeed soo baad gaar ahaan magaalada Baydhabo sababtu waajid laamiyalkaasi ma aragtay in helo waysanta in laam hela interlog la dhika aqabada degmada haysta ma ku mid horta walkasta step by step waaye dowladnimadiina ta magaalada madaxda ku bilaawda hayta in laamiye la dhiso oo walkasta la soo biimeel la ka bilaaw marka dabcan markii wasaaradda arrimaha gudaha uu naga heje iyo dowladaha hoose ونعطوه بس وبني strategic plan صوبني برامج أو DDF لرو أو district development framework صوبني شنطة سنة أو حتى درتمان دي تكون هاي سنة قرشيال وندك سنة أو صوبني جران مركن قيب تسيادة مركون هنقات كسي ونحط كدر رهين ويرجعنا إني وندير دون هتوك ولا يكوري تني ديجانا دون قاضون هايين نمك عدو هاي قاضومي maadaama go'doonkaasi la ka jaray marka wayba la arko macnaheedu xitaa markaasi dowladnimadii ama hay'adoogi oo in sheegada deeq bixiyaashi sida saxda ee markaasan deeri koreen xoogaa cariiriyaas ku hayt walaaytu ku horeeyay marka way rajaynaa xanaqaad una hata wadna ya muddo kooban in la ka deero rajayna waan on processnet degmadu wayba ku muuqata fursad ganacsi dadka ku jeeda degmadu oo ilaahay warsi ganacsatada may fariyaan darlaaytay dadka ku jeeda dal idibid way baaqan ka diray degmadan horta isin ku jeedaan reer koonfur galbeed qaasatan reer Boqol degmada weejid degmooyinkana geeka way ka hormarayaan dadka ganacsatada inay maal gashadaan ya ka hormarayaan way ka hormarayaan in dawladda meel raasyo la shaqeeyaan way ka hormarayaan dadka dibido jar ini oo meel raasyo dibanka nagadan waana maal galadaan ka hormarayaan oo fikradiyo iyo hal abuursho oo ganacsina la kooyaan marka baaqas hordhaagna aan dirnay markastana kana nagaana way balana deegaanidin yasan anfacayana dibnahan ka nagada horumaradana ku shaqeeya ganacsi iyo si xornimo oo xalaal ah ka shaqeysada una sin garab galaana maamulkii dawladda hobayna iyada ma sharfalad